anigoo aan hadalka sii badinayn waxaan taaban lahaa dhowr qodob insha Allah oo ay ugu horeyso marka laga hadlayo isboortiga taariikhda isboortiga waxay ku timid marka laga hadlayo waxay bilaabantay ilaa 1800 iyo jarjarkii bay bilaabantay laakiin waqtigii la sii hirgeliyay la dardargeliyay waxay ahayd markii dagaalkii labaad ee adduunka la doonayay in ciidamada laftigooda la baran nabadda marka waxaad ka garan kartaa halkaas in ciidamada la baran nabad waxay u baahan yihiin in la baro sport marka sportigu waa wadada koobaad ee nabadda lagu hirgelin karo marka laga hadlayo sportiga iyo caafimaadka marka imka qofku in badan uu xanuunsado haddii uu dhakhtar tago isagoo dhaqaaqi karaya oo xanuunkiisu una serious ahayd waxa loo qoraa sport inuu ordo waxa tusaale ahaan soo qaadan karnaa macaanka in maad aragtay uu jidh sameeyo sportiga ayaa loogu talagalay inta badan marka caafimaadka waxa marka halka ka cadiyadana in sportigu uu yahay laf dhabar marka laga hadlayo sportiga iyo qabyaaladda shayga kaliya marka aad eegto maad aragtay wadamada horumaray waxa had iyo jeer lagu tartamaa waa sport qabyaaladuna waxay ka dhigan tahay marka waxa kaliya la dagaalami kara ama dili kara inay tahay sport inay tahay marka sportigu dawooyin badan ayuu leeyahay marka waxaan codsanaynaa insha Allah dhalinyarada sportiga ciyaaraysa inayna iyagu ayna keenin cudur kale oo ku saabsan in sportiga laftigiisa ay dhaxgeliyaan oo ah tusaalaha aan soo qaadan karno oo ah iyaduna armihii maalintii dhaweyd gobolka Faafan ciyaarihii ka dhacay ma aha kooxdu inay horseedo ama taageerayaashoodu inay horseedaan ma aha qaab qabiil oo kale inay isku taageeraan waa in iyagu ay taageeradoodu ay ahaato in ay qabyaalad ay ka madax bannaan yihiin in ay qabiil ka madax bannaan yihiin taasaana marka sportigu uu ku yeelan karaa midho dhal fiican marka waxaan oran lahaa dhalinyarada in ay u ciyaaraan waxaan rabnaa iyaga oo aad moodo hal qoys iyaga aad moodo hal gobol iyaga oo aad moodo hal degmo in ay u ciyaaraan ciyaartoodana u dhameystaan ayaan codsan lahaa kulana dardaarmi lahaa midda labaad taageerayaasha waxaan oran lahaa in iyaguna idinma kala xigaan dhalinyaradu deegaanku waa hal deegaan gobolladuna waa isla hal gobol degmooyinkuna waa isla hal degmo in iyaguna ay u taageeraan koox kasta oo ciyaaraysa tusaale ahaan gobolka kooxda ka socota gobolka Jarar in ay soo dhaweeyaan taageerayaasha gobolka Faafan oo kale gobolka Qabridahar oo kale in ay iyagu ay u noqdaan kooxuhu hal gobol inay ka wada socdaan laakiin ayna u bedelin arrin xamaasadaysan oo qabyaaladaysan oo gobolaysan inaan loo bedelin baan kolley ka codsan lahaa tartamayaasha muxuu taageerayaasha midda kale aan ku soo dar lahaa waxa weeye dawladdu had iyo jeer waxay ku hawlan tahay sidii garoomada sportiga loo badin lahaa laakiin halkii garoon ee caasimadda ku yaalay haddii had iyo jeer uu ka yimaado dawladdu ku dhiiran maysa in garoomo kale ay sii badiso marka waxa qurux badan in tartamayaasha iyo taageerayaashuba ay sababaan in dawladdu ay u degdegto in caasimadda kaliya laga abuuro ama laga sameeyo 10 garoon oo ay ku ciyaaraan kooxaha ka kala socda ilaa heer degmo marka waxaan codsan lahaa hadii jeerna ku celcelin lahaa in akhlaaqda iyo xeerasha iyo sharciyada sportiga aad loo ilaaliyo koox kastana ay u hambaliyayso kooxda ka badisa maxaa yeelay waxa inoo muhiim ah inaad garataan caasimadda Jigjiga in ay tahay isla gobolka Jarar isla gobolka Shabeelle isla gobolka Qabridahar
isla gobolka doollo oo caasimaddu ay wada matashay inaad fahantaan baan doonaynaa laakiin haddii loo arko caasimaddu inay si kala tahay dhibteeday leedahay marka waxaan codsanayaa had iyo jeerna ku celcelinayaa caasimaddu waa gobolka aad u tartamayso waa gobolka aad ka tartamayso marka caasimadda ilaasho maxaa yeelay iyadaa sawirkeenna oo dhan bixinaysa haddii ay noqoto dad aan xadaarad lahayn oo ciyaaraya oo aan noqonno 24 saac marka meel la iskugu keeno istagaalaya waxay noqonaysaa siyaasiyiinteenna iyo culimaadudiinkeenna sida idinku had iyo jeer sawirka aad bixisaan unbay iyaguna yeelanayaan dhallinyaradan la hadlaya isboortiga kolley maanta ciyaaraysa waxaan leeyahay koox kastoo guulaysataa waa kooxdayadii koox kasta oo madaragtay ay laga qaado koobkuna ma guul darraysanayadna way guulaysatay laakiin waxaa muhiim ah inaynu ilbaxnimo iyo xadaarad badan muujinno aad baan idiin salaamayaa wada guulaystaan idin leeyahay